حلي حيسحك القعل كيو ربي قول ربي قول waxaan qadka telefoonka ee magaalada London kula xiriiray Xuseen Shariic Yaar Jecel Xuseen waa abwaan marna waa fanaan hase yeeshee heeso badan oo sameeyay ayaa ah kuwa ka turjumaya qisadaba oo jacayla inaan raago ribado karkaan ka dhaxo ay kuma tashani lule 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 igraalino Xuseen waxaan weydiiyay heesaha kale halkooda hay ii joogaanee heesaha ku saabsan marwada luul teek ugu horeysay oo aad dhiftay marka ugu horeysay taayir aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay sida sharafta iyo qiimaha leh runtii waa su'aal aad u wanaagsan waa su'aal aan wali hore la weydiin suxufi ii weydiin maadaama adigu aad tahay suxufi marna abwaan marna munul xamiiste fankana waxaad ka garanayso runtii su'aashaas waa u baahnaa in la weydiiyo waaya heestii ugu horeysay ee aan runtii aan u sameeyay waxay ahayd 1989 anoo jooga magaalada Berlin ee wadanka Germany 1989 waa dhowr iyo 20 sano 22 sano ku dhawaad ahay waaya anoo markaa 3 bilood Soomaaliya soo moog walwal iyo runtii fakar iyo xiise iyo kalgacal intaba aan xambaarsanahay waad garanaysaa nin xaaskiisa ilmihiisa ka soo dhoofay nooca uu noqon karo markuu wadan kale inay sarki doonaan inay sarki doonin tolo maxaa ku dhici doona siday noqon doonaan mooda sarki doontaan masaanbay kugu dhamaan doontaa wax badan baa qofka maskaxdiisa iyo qulubtiisa iyo qalbigiisa rogrogaya waa run dagaalka sokoyana uu soo dhawaa dagaalku sokoyina uu soo dhawaa adigu hees markaas habeen aniga iyo Cabdi Baadil iyo Jooqle iyo niman kale fanaaniina iyo asxaab Jarmalka aan ku wada joogno ayaa meel baa la wada fadhiyay waa lagu qaqaylayay qalbi warqad baan qaartay hees la yiraahdo adiga iyo labada wiil ayaa iga soo goday habeenkaas waaya bal eriyadeedii wuxuu yiri madalada hurdada oo 6 jeer baan habeenkii luulay daraada laabka ay ma ogtahay sida qaalin layliya jarag lagu lugligayo lagu dhaqaaji waayaan leeytaaye ma ogtahay leyrkii adduunkay lamaanihi naftayda haddaan la xudka leeydigo soo laaban doonay adiga iyo labada wiil ku sii jooga liibaan aashaq way igu ligayo labxadayda beerkii laab xuushadaydu kallu shaaye ma ogtahay dhulka luqay xareedii laabaha caleentuna ku ciyaadhan laydhan luufluufay ma ogtahay leyrkii adduunkay lamaanihi naftayda haddaan la xudka leeydigin soo laaban doonay adiga iyo labada wiil ku sii jooga liibaan hadalkan waxa iga dhamaalay leh marka laba wiil bay haysatay luul waan iska garanaysaaba sheekadu sida ay tahay uma baahna in laga sheekeeyo habeenkana rag way qaylinayaan ayaa tilaa adigu ma qayshid Xuseen oo sidaan oga wallahi ma qayilin laakiin habeenkaas beer markaan sheegay laba qoray waa taan waayahay maxallinka waayahay لقاء الليل فله بالغناء لقاء ويا نكاي مكاي لقاء الليل فله بالغناء لقاء ويا نكاي مكاي لكن عدوك لمالين الصيدة كان لطفك الله يدري ولا بندولي أغيريو لبدوي سيجوبا لباس heestee ku xigtay Xuseen waxa ku xigtay hees kale oo Cabdi Baadil qaado oo la yiraahdo xilal la yiraahdo magaceeda waaya oo runtii ayaa ku xigtay
كحولي xiisaha kalgacalkiyo xubbigu naga dhexeeya dumartanka xulaye xiisaha kalgacalkiyo xubbigu naga dhexeeya tii hore ma yaa qaaday oo aad يور وعاقر كان وقت الرياض قال لا سي عبد الشرجع وشغله ولا لا لا حق عبد البادر بوسري waaya tan nooga dhac cabdibaadir عبد البادر اي شكله دالكي بان دحاي dadku way kala lubeen wal la isu waayay iyadii markii dambe Nairobi timid cidii Nairobi joogtay ugu timid cidii sidii qaran Israaciil baa loo soo dhaweeyay waa telefoon baa la ii soo diray waxa la yiri gabadhii baa timid marka ninkii xagee la isu waayo meel la isku xiriiray ma lahayn ninkii ma nool yahay ma dhinto ninkii war miga hayaayo ninkii xaaladiisa wuxuu ku sugan yahay waxa si tiri waaya marka qofka haddii Soomaaliland qulub baa galahayo waxa laga yaabaa qofkii oo marka Xuseen ma ogalul inaad u heesayso Jarmalku u heesayso adigu wallahi adigu heestaas hore way gaartay laakiin midaan dambe markii dagaalada dhacay waa la isu waayo hatta dadkii Afrika jooga hatta isla xiriiri kari waayay waaya adigu inta markii la yiri baan hees la yiraahdo xilal la yiraahdo sameeyay oo aan u sheegayo inaan ahay ma garanaysaa xabiibkeed inaan xoogsi iyo xamuul la ugu maqanayada waaya wuxuu yiri dumartanka xulaya xiisaha kalgacalkiyo xubbigu naga dhaxeeyay middu xaaki fiiqi waaya xukugal wax garadii ku xantay waraagay waaya uruxda xisaab liitii loo xantoobshay loogu daray xishoodka ay mehertan ku xiraye usulada u dubtay ilaahay noqotay hadda xaadir kuma ihi xaruntaad ku nooshay adaan xoogsi nolol iyo xamuul kugu maqanay qalbigana xaggaagu xigsada sidiisa yar yahay xaasidka iyo kala gara xabiibka xubnahaaga dhilano haadu ay ku yaratal naftu way u xiistay xusuustaadu gabar yahay kama go'in xaggaygo adiga igu xeeran kolan xaba quraciyo dhulka xaqin marayana ana sida xilkaaga xiska waxan gashaday inaan xabar ku laabto xidig yahay ku daawado hadda xaadir kuma yihi xaruntaad ku nooshay adaan xoogsi nolol iyo xamuul kugu maqanay qalbigana xaggaagu xigsada sidiisa yar yahay xaasidka iyo kala gara xabiibka abwaan maxamed cali kaariye ayaan ku 994 waxaan weydiiyay markuu dhiman rabay abwaan sugu wuxuu degay cirka abwaan xasagarin dhulku degay adoo xagee degtay markaas uu ugu yiri waxaan degay qalbiga alla ilaahay Xuseenow adiguna qalbiga oo badhex deganta ma yaanu wadnaan degay adigu wadnaha degtay waayahay kulan xaaba quraaciyo dhulka xaaqi mariyaba kulan xaaba quraaciyo dhulka xaaqi mariyaba ana sida xilkaaga ana sida xilkaaga xiska waxa gashaday inaan xamar ku laabto xidig yahay ku daawada way xidig yahay ku daawada xiska waxa gashaday waxaas heestaani xaleedahay ka yaab mar aad leedahay quruxda lagu daray xishoodka halka markay maraysan ayaa yaab qaafiyada aad u wadaa heesta ma inta waa siday tahay way siday ay u tahay way uruxda xisaab liitii loo xantoobshay loogu daray xishoodka inaba caadi maaha lul ma gaarto marka heesti لولتي ويجرتي مركي جرتي ويسمح بريد جيسة كده بالتليفون ودري يدو عادي يدو كان أحسن وفرحسن وايه بس صعد السودان انت كم هرب لول انت كم ما السودان ترى من هاي سماها هو تربان السودان ترى وجس ولا ما بحكي إنه ملنا يا الله ما الموت حتى هذا واحد يرسك ده dhegeystayaasha maalinba heer ayaan u ciyaari doonaa hase yeeshee waxaan leeyahay intii dhegeysanaya sii xiiseynaya dhegeystaan barnaamijkan xiisaha badan ee maxaad ka taqaanaa sugaantii abwaan xuseen shariic ciyaar jecel
gaar ahaan kuwii u tiriyay marwadiisa waxaan leeyahay la socda qaybta labaad ee sheekada waad maasan tahay adiga mudan marwo rasmiya raxmad lagu dariyo raaciyate marwo rasmiya raxmad lagu dariyo raaciyate mid kalo arabo raacay ma jirte waxta ay rasmigiyan ku reynayo oo naftu ay rabte mid kalo arabo raacay ma jirte waxta ay rasmigiyan ku reynayo naftu ay rabte inaan raago ribado karkaan ka dhaxo rayikuma tashani luley 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 igaraale noqo kumbuloy kumbulaala cadoy beerkayga degtoy oo bidhaan wacanay luley 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 igaraale noqo goribado karkaan ka dhaxo rayikuma tashani luley 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 igaraale noqo kumbuloy kumbulaala cadoy beerkayga degtoy oo bidhaan wacanay luley 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 igaraale noqo kumbuloy kumbulaala cadoy beerkayga degtoy oo bidhaan wacanay luley 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 igaraale noqo kumbuloy kumbulaala cadoy beerkayga degtoy oo bidhaan wacanay luley luley